بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل رمضان سيد الشهور وضاعف فيه الحسنات والأجور. أحمده وأشكره فهو الغفور الشكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أوفرها ليوم النشور. أرجو برها وذخرها والفوز بها بدار القرار والنشور. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أشرف آمر ومأمور. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. وبعد، أحبة الكرام، أخواني في الله، موضوع كان وحين كجهد لينا وحل يراهده حال المسلم في رمضان بين الواقع والمأمول. مسلمين تا حال كودا بشهر رمضان سيدو يهي حال كودا أو بين الواقع والمأمول. أرنتي دبتا أهيد يوحي اللي في ليو الرجيناي لبدا حالو oo dadka muuminiinta bisha ramadaan dhexdeeda waxay ku sugan yihiin wixii xaqiiqada oo dhabta ahaa iyo wixii la filayay. أن المشاهد لحال المسلمين في هذا الزمان يجد أن واقع الكثير منهم مخالف للمأمون منه بصفته الإسلامية. قف كفيرشة أما إيجا ما أنت مسلمين تحالة زبنا كان إنه جوجنو wuxuu helayaa dhab ahaantii xaqiiqadii dhabta ahayd in badan oo ka mida muslimiintu inay khilaafsan yihiin wixii la rajaynayay. dhab ahaantii wixii la rabay oo laga rajaynayo qofka muuminka ah maanta inay khilaafsan yihiin, gaar ahaan sifadii islaamnimo oo laga rabay qofa kan oo dhabta ahayd inuu khilaafsan yahay. وفي هذا المقال سوف نتناول بعض الصور الواقعية لحال كثير من المسلمين في رمضان. مقال كان وحين كهاد لينا أما كسو قادنينا سويرات نبأة ضد بدن أو مسلمين تكمل حال كودا هي بشهر رمضان. وحين كسو قادنينا سويرو حقيقة حالك إن بدن أو مسلمين تكمل بشهر رمضان. حال المسلم في رمضان، مسلم كحال كيسو بشهر رمضان بين الواقع والمأمول. وحود حيا حقيقة نبقى أو جرته هي وحلة فيريو والرجينيو. لقد تحولت العبادة عند الكثير من المسلمين إلى عادة. وحي سبب شيء عبادة دي إن بدن أو مسلمين تمان تجوك تكمده عبادة دي وحي سبب شيء عادو wax la caadeysto la iska bartay. meeshii cibaado ahayd oo laga rabay cibaadadaas si cibaado ahaan loo guto in badan oo muslimiinta ka mid ah maanta waxay u noqotay waa dhaqan bay u noqotay. fa huwa yusalli caadatan la cibaado. salaadu waa dhaqan la iska bartay oo masaajidka in la galo ma aha cibaado. ويصوم وصوميا qofkii لأن المجتمع من حوله يصوم. حيالي تذكر العيادي سابع صومي وحي dhab ahaantii laga rabay iyo dhaqankii laga rabay iyo sifaadkii laga rabay baa meesha ka baxday. waxay noqonaysaa waa la tukaday tuko, waa la soomay soom. wixii laga rabay salaad ay leedahay oo dhab ahaanta loo rabay meesha kuma jirto. wixii soon ahaan qofka laga doonayay ayaa maqan, macnihii baa maqan. marka wuxuu waa dhaqan la bartay markaa buu noqonayaa ee cibaado noqon maayo. وهذا لم يصوم رمضان أسومي ما يقفكاسي إيمانا رميسنان أو رميسن ياي وواجب إلهي كويا لي أو بري لغالا حساب تميو
ilaahay abaalmarin iyo ciqaab midun kugu siinayo iyo wax tisaaban meesha tan khayr iyo ajri iyo wax wanaagsan ka kaydso u soomi maayo waqad qaala sala allahu calayhi wasalam wuxuu suubanuhu yidhi man saama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbihi rawaahu shaykhaan qofkii sooma bisha ramadaan isaga oo rumaysan waxa kan wax ilaah ku waajib yeelay inuu yahay waajib rabbaani ah oo ilaahay ku waajib yeelay oo ah sir u dhaxaysa addoonka iyo ilaahay iyo ajri sugasho qofkii u sooma meeshta khayr aad shaqaysatid ilaahay dembi dhaaf ha ku siiyo wixii ay mudnayd mari qofkii sidaa u sooma gufira lahu maa taqadama min denbihi ilaahay wuxuu u dhaafaa wax alla wixii hore oo dembigiisii ah ilaahay wax ayuu u dhaafaa shahru ramadaan bisha ramadaan walaalayaal huwa shahru lmunaafasati fi taacaat waa bishii tartanka ilaahay daacadiisa loogu tartamayey walaakin asbaxat munaafasata annaasi fiihi maca alasafi shadiid cala atanwiici fi lma'aakil walmashaarib walmalaahi bishii daacada lagu tartamayay bay ahayd laakiin maanta waxay noqotay dadku inay ku tartamaan anoos aada uga xun annagoo aada uga xun in lagu tartamo maxaa noocee la cunayaa noocee la cabbayaa noocee yacni lagu faanfaanayaa noocee lagu caweynayaa maxaa la samaynayaa fatajidu nnaasa fii ramadaan bal wa qabla ramadaan waxaad arkaysaa bisha ramadaan dhexdeeda iyo horteedaba yafduuna ila alaswaaqi bianwaacihaa liiqtinaa'i xaajiyaati ramadaan iyadoo dadkii la wada aadayo lagu yaacayo suuqyada iyadoo lagu yaacayo oo laga soo urursanayo wixii baahi ahaa ee ramadaanka wix alla wixii ramadaanka baahi ahaa loo kaysanayo cunooyinka cabitaanada noocyadaa dee ma diidana diinteennu wixii aad ku noolaan lahayd inaad meel dhigato laakiin maxaa ka horeeya waxa kan aad iska kaydinaysid inaadan u kaysan cun oo cab oo dhereg oo seexo ama lahwi iyo xubaan ku soo jeed marka waxaad arkaysaa dadkii oo jamaacaad ugu baxaya suuqyada si ay u kaysadaan baahiyaha ramadaan fa haa-ulaa'i yadhabuuna waxay aadayaan dadkaasi ilaa aswaaqi almawaadi alqidaa'iya suuqyada cuntooyinka ayay aadayaan wa ulaa'ika yadhabuuna ila almataacim waxaa la aadayaa meelaha cuntada laga sameeyo maqaaxiyaha bal watajidahum yaqifuuna amaamaha bisufuuf fii intidaari dowr waxaad arkaysaa oo dadkii ku arkaysaa iyagoo taagan meelaha raashinka laga qaato cuntada laga qaato iyagoo safaf dhaadheer ugu jira si qof walba waktigiisii uu doorkiisa qof walba ugu helo markiisa wa aakharuuna yadhabuuna ilaa maxallaati alawaani almanziliya qaar waxaad arkaysaa iyagoo loo yaacayo meelaha maacuunka lagu gado wa aakharuuna yadhabuuna lilishtiraak qaar waxaad arkaysaa iyagoo aadaya say uga qayb galaan fi lqanawaati alfadaa'iya kanaalada tiifiyada iyagoo soo xiranaya kii cayaaraha kii magaciisiga bal xataa xarakata almuruur tadribu amaama hada alamaakin fayaddiru rijaalu lmuruuri ilaa takfiifi wujuudihim cindaha xataa yunadimuu xarakata asayr lima yaxsilu min azixaami walfawda walidiraab waxaad arkaysaa xataa ciidankii taraafikada oo dhib kala kulmaya meelahaas ama cuntooyinka ama maaragtay wax alaabta laga gato dhibaato kala kulmaya aada u ballaaran oo waxaa raggii waxaa dhibaya muxuu ahaa taraafikadii yacni dadkan meeshatan soo buuxiyey oo faraha badan oo markaas siday u kala nadaamin lahaayeen bal socodkii sida loo kala nadaamin lahaa
maxaa yeelay meesha waxaa ka xasilaya ciriiri iyo fawdo iyo isbaraambar iyo isku tumasho iyo isku dhac ayaad ka arkaysaa. uma idaa atayta ila almanaazili tajid الnisaa fi lbuyuuti yanhakamna diwaala alleyli wاnnahaari fi icdaadi alakalaati almukhtalifati walasnaafi almutanawica. waxaad haddaad tagto guryaha waxaad arkaysaa ama aad ka helaysaa haweenkii oo aad ugu maman habeen iyo maalinkii iyo habeenkii oo dhan cunno diyaarin kala duwan iyo noocyo la samaynayo oo cunno ah oo laysugu faanayo dhexdooda. intaasaan sameeyey, intaasaan cunno ah, waxaasaan qabay. weliba haddii iyagu dumarku waxaan qabaa inay ku mahadsan yihiin inay ummadda u diyaariyaan wixii ku afuri lahaayeen iyo wixii maaragtay carruurtu ay cuni lahayd, inay iyagu halkaa ammaan iyo khayr badan ka helayaan. laakiin tan aan ka hadlayno waxay tahay cunno fara badan oo noocyo ah oo kala duwan oo aad iska diyaarsato sida xoolaha oo kale laysaga cuno oo loo barfuuqo, iyadoo laga yaabo inay dhinacyadaada ku nool yihiin dad masaakiinah oo aan waxaa heli karin. alkathiiru min almuslimiin waa dhacdooyinka dhabta haddee. alkathiiru min almuslimiin in badanoo muslimiinta ka mid ah yudiicu waktahu fii ramadaan fima laa yacuudu calayhi binnafci fi dunya walaa fi laakhira. wuxuu in badani waktigoodii ay ku hadlayeen ama ku dhumiyeen bisha ramadaan waxaysan nacfi adduunyo iyo mid aakhiro midna uga soo noqonayn, waxaysan khayr adduun iyo khayr aakhiro midna ku helayn oo nacfiga ku gaarayn ayay ku dhumiyeen. bal rubamaa in hamaka fi lmuxaram, waxaa laga yaabaa inuu qofkani ku mashquulsan yahay oo ku dadaalayo waxyaabo xaaraan ah. wa min dalika waxaa ka mid ah waxyaabaha xaaraanta ah oo lagu maman yahay oo lagu ordayo waxaa ka mid ah ana alkathiiriina in badan yatasamaruuna amaama alqanawaati alfadaa'iya. in badan oo dadkii ka mid ah bishii ramadaan maxay ku soo jeedaan kanaaladaas tifiyada ayay ku soo jeedaan. maxay ka helayaan? waa litalqafa asumuum alatii tabuhuhaa tilka almaxadaatu shaytaaniya fi shahri almubaarak. bishii barakaysnayd ayay kanaaladaasi waxay soo daynayaan sun iyo waxaad qofkii intuu tago ayuu wuxuu hor fadhiisanayaa kanaalkaas wuxuu kasoo qaadanayaa sunta ay kanaaladaasu sii daynayaan ee shaydaaniga ah. bishii ramadaan ayaa kanaaladu waxay soo daynayaan sun, qofkuna suntaasuu ka qaadanayaa oo caawa dhan saa u hor fadhiya oo waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo waxaan ku sugayaa suxuurta. fayantaqilu min tamhiiliyati mali'atin bisuwari almuxaramati walafkaari haddaama ilaa ugniyatin maajina ilaa mubaaraatin ilaa fawaasira ramadaan wa gayri dalika min albaraamij sayi'a. waxaa markaa ay ka soo ranayaan waxyaalo sawiro xaaraan ah iyo afkaar shareecadeennii iyo dhaqankeeniiba duminaysa iyo heeso majaajilooyin iyo waxyaabaha xunxun iyo tartamo cayaareed iyo waxyaabaha kan halxiraalayaal bisha ramadaan aan macna ku jirin oo baatil ah iyo waxyaabo kale oo barnaamijyo aad u foolxun oo dhan ah. fatafuutuhu salaatu taraawiix, waxaad dhaafaysa oo ka tegaysa qofkaas siduu halkaas kanaalkaas u hor fadhiyo oo uga daawanayo waxyaabaha xunxun iyo sunta uu faafinayo iyo heeso iyo majaajilooyin iyo cayaaro iyo waxyaabahaas halxiraalaha ah oo bisha ramadaan loogu talagalay waxaasu u hor fadhiyo. fatafuutuhu salaatu taraawiix watafuutuhu qiraa'atu alqur'aan watafuutuhu alacmaalu asaalixa. waxaa dhaafaya oo ka tegaya salaadii taraawiixdu way ka tegaysaa, waxaa ka tegaya qur-aanka akhrintiisii, waxaa ka tegaya acmaashii wanaagsanayd ee bisha ramadaan laga rabay inuu qofku la yimaado.
bal tafuutuhu leylatun hiya khayru min alfi shahrin waxaad dhaafaysa oo ka tegaysa bishii habeenkii khayrka badnaa ee kunka bilood ka khayr badnaa yaa xasrataah bal rubamaa qasara bacduhum fi adaa'i alwaajibaat alatii awjabaha allahu caza wajalla waa tiraanyo iyo qoomamo waxaa laga yaabaa qaarkood xataa inay ku gaboodfalaan waajibaadkii ilaah ku waajib yeelay gudashadiisa inay ku gaboodfalaan oo salaadiiba kaga tagaan walaa shaka shaki kuma jiro anna bificlihi haada samayntaas qad jaraxa sawmahu wa naqasa thawaabahu waxaas oo dhani shaki kuma jiro uu samaynayo inay dhaawac u geysanayaan soonkiisii in thawaabtii ay ka nuqsaaminayaan waxaas oo dhan wa min almuslimiina waxaa ka mid ah man yucidduuna malaaciban likurati alqadam ow istiraaxaatin lilicbi alwaraq wakayrihi waxaa ka mid ah oo la yaab leh bishii ramadaan kuwo badan oo muslimiinta ahi waxay diyaarinayaan meelo lagu cayaaro kubadda cagta meel kubadda cagta lagu cayaaro meelo lagu nasto oo lagu dheelo turub iyo muxuu yahay dumnad iyo kan kasii daranoo xaaraan tahay oo laadhuuga la yidhaahdo oo nebigu uu yidhi man laciba narda faqad casa allaha wa rasuulahu ninkii laadhuu cayaara dhili qofkii cayaara wuxuu caasiyey rabbi iyo rasuulka ayuu caasiyey mar kalena laga sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam man laciba narda shiid qofkii cayaara laadhuuga fakaannamaa sabaqa yadahu bilaxmi alkhinziir wa damihi waxaa moodaa qof gacanta kula jira oo gacanta ku dharoobay hilib doofaar iyo dhiiggiisii qofka cayaara waxaas ayay diyaarinayaanoo fatajidahum waad helaysaa markaa yajtamicuuna bacda aliftaar markii lasoo afuro waa meesheenii inoo geeya halkeenna aan isugu tagno aan cayaarno turubkii aynu muxuu ahaa dumnad cayaarno aynu dhilidhil cayaarno ayay odhanayaan waxaasaa laysugu imaanayaan wayabduuna bilcabathi min dalika alwaqti ilaa waqti suxuur waxay meeshaa cayaartaas iyo dheeshaas ayay meeshaa kusoo bandhigayaan laga bilaabo xilligay afureen ilaa waqtiga suxuurta wa rubamaa imtada alamru bibacdihim ilaa maa bacda salaati alfajri waxaa laga yaabaa qaarkood in taladaasu ayba la gaarto cayaartaas iyo waxa ay samaynayaan qaarkood bacda salaati alfajri xataa salaada subax kadib inay xataa sii socoto oo ay arrintaasu sii dheeraato huma yanaamuuna ay seexdaan markaa wa qaliilun minhum waxa yaroo yar waxa yar markii salaada la suxuurto oo xilligaa lagu gaaro waxaa oo salaadii arariyo bacda alfajri markay ahayd ee ogu soo dilaaco salaada la sugi lahaa ayaa qaarkood daadanayaan oo seexanayaan xilligaa huma yanaamuuna wa qaliilun minhum in yar oo ka mid ah waxa yar oo yar man yastayqidu liadaa'i salaati fii awqaatiha inta u toosaysa salaadii waktigeeda gudashadeeda inta u toosaysa ayaa yar oo waxay yihiin waxaan la heli karin ama an yashquluu waqtahum biqiraa'ati alqur'aani waaldikri waalmukfi fi lmasaajid fahada maa laa yakhturu lahum calaa baalin inay ku mashquulaan waqtigooda ku mashquuliyaan qur'aanka akhrintiisa dikriga ilaahay muxuu ahaa salliga nebiga masaajidka oo ay ku ictikaafaan arrimahaasi wax qalbigoodaba kusoo dhacaya ma aha walaa xawla walaa quwata ila billah wa minhum man yamduuna awqaatahum allatii low kaanat tubaacu liishtiraa'ihaa lashtaraahaa alcuqalaa'u biaqlaa min aldahabi waalfida waxaan arkaynaa qaarkood inay waktigoodii ku dhammaynayaan wax haddii la gadi lahaa oo iib uu noqon lahaa kuwa caqliga leh ay ku gadan lahaayeen dahabka iyo fidada dheemanka waxa ka qaalisan ay ku gadan lahaayeen dadka qaarkiisi bay waktigoodii ay ku dhuminayaan waxay waktigoodii ku dhimanayaan awqaadoodii waktigaas oo haddii la iibin lahaa dadka caqliga leh maskaxda leh
garaad kale ay ku gadan lahaayeen dahab iyo fido wayamduuna waxay ku tagsiinayaan waqtigoodu ku dhuminayaan fi tasakuci fi laswaaq inay suuqa iska meeraystaan suuqa iska dhacdiidaan marba meel ka sheekeeyaan bal rubamaa kaana bacduhum fii ashrafi zamaanin fii shahri ramadaan waxaa laga yaabaa qaarkood waxaa inay ku sugnaadaan waktigii zamanka ugu sharafta badnaa ee bisha ramadaan wa fii ashrafi makaanin fii beledillaahi alxaraam iyo qaarkood iyagoo joogoo ku sugan meelihii beledulxaraamkii iyo meeshii ay ka samayn lahaayeen cumraysiga iyo khayrka iyo muxuu ahaa cibaadada masaajidda qur-aanka akhrintiisa waktigoodii oo dhan waxay ku dhuminayaan waxaa cayaartaas iyo inay waktigoodii suuqa meeraysi iyo dhacdiid suuqa inay ku dhammeeyaan wa taraahu yatasakacu fi laswaaqi lificli maa yaqdibu llah caza wajalla min annadri almuxaram waxaa la arkaa qaarkood suuqa inay u meeraysanayaan ay samaynayaan ficil ilaahay ugu caroodo oo ah inay naag muxuu aha xaaraana eegaan iyo hadal xaaraam ah iyo calaqaad xaaraam ah waxaas qaala tacaala waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim qofkii ilaahay beytkiisa xumaan iyo dulmi iyo wax kale qofkii la doono oo la raadsada waxaan dhadhansiinaynaa cadaab aada u xanuun badan waxaa kale oo ka mid ah cadamu taladudu bilcibaada dhaqamada ama dhacdooyinka dhabtaa waxaa ka mid ah qofkiiba inuusan macaan u yeelan ilaahay cibaadadiisii najid ana alkathiira min annaas faqulat calayhim alcibaadaat in badan oo dadka ka mid ah waxaad arkaysaa in cibaadadiiba ku cuslaatay wa asbaxuu yadlubuuna araaxata minhaa oo waxay raadinayaan ama waxayba waaberisanayaan iyagoo raadinaya siday uga nasan lahaayeen cibaadada ilaah iyo khayraadkii iyo masaajitagtii laa bihaa ku raaxaysan mayaan khayraadkii waxay inay ka raaxaystaan bay rabaan walaa taxsulu lahum bihaa ladda wax macaana iyo wax naftu rabto toonna ka heli mayaan shaygii cibaadadaha waqad kaana cabdulwaaxid binu zayd yabkii kahiiran waxaa la yidhi wuxuu ahaa addoonkaas la oran jiray cabdilwaaxid binu zayd in badan buu ooyi jiray wa yaquulu wuxuu oran jiray faraqa almowtu bayna almusalliina walladatihim fi salaat geeri ayaa kala kaxaysay kuwii salaada ay dadkii wada tukan jiray ee u macaansan jiray salaada wa bayna saa'imiina kuwii soomi jiray iyo walladatihi macaansigay u macaansan jireen fi siyaam soonka ay u macaansan jireen waqad akhbara nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu inoo ka waramay ana lisaa'imi farxatayn ama farxataan ninka qofka soomani wuxuu leeyahay laba farxadood ama haaulaa'i kuwa kan fa farxuhum bisuquudi xamli siyaami canhum wa mashaqatihi ama haaulaa'i kuwaas faraxa labada farxadood leh fa farxuhum faraxa ay ku farxayaan weeye waa lisuquudi xamli siyaami canhu wa mashaqatihi waxay ay culayskii soonka ayaa xaggooda ka dhacay iyo dhibaatadiisii waladii laa yajiduuna low ladatan iyo kuwa aan ka helayn wax macaana ka helayn wahada yarjicu ila adunuub alatii damasat alquluub kuwa kani waxayba ku farxayaan soomka culayskiisii iyo dhibtiisii oo ka dhacday kuwa aan macaanka ka helayn iyo kuwa aan macaankaba ka helayn wax macaanaba aan soonkii ka helayn wahada yarjicu ila adunuubi aladii damasat quluub waa waxa macaanka ay uga heli waayeen kuwa kan aan macaanka ka helayni waxa qalbigoodii malaasay oo awday waa dembi walaa xawla walaa quwata ila billah waqad su-ila wahayb binu wardi ayaa la weydiiyey oo waxaa la yidhi hal yajidu dacmu liimaan
man yacsi illaaha qof ilaahay caasiyey iimaanka macaankiisa ma heli karaa oo mar dhamin karaa qaala wuxuu yidhi la maya walaa man hama bilcasiya mid kaas ilaahay caasiyey ama macsi ku hamiyey oo damcay midna labadaa midkoodna daacada macaankeeda ma helayo iyo iimaanka macaankiisa toonna wa qaala dhunnuun ilmasri wuxuu yidhi kamaa laa yajidu ljasadu ladata aطacaami cinda sakmihi kadalika laa yajidu qalbu xalaawata alcibaadati maca dunuub sida qofku markuu bukoodo uusan cunnada macaankeeda u helin saas si la mid ah qalbigu ma helo macaanka cibaadada haddii mar qalbigaas uu yahay qalbi dembaabay qalbigu hadduu qalbi dembaabay yahay ma helayo cibaadada macaankeedii